waxaa ii muuqata go-aankaas inuun ahayn go-aan saxa 15 beri gudahood doorasho intaa la eg oo dowlad goboleed dhan madaxweynihiisa lagu dooranayo laguma qaban karo haddii la rabo doorasho madax banaan oo cadaalada inay dhacdo waxay u baahan tahay waqti dheer oo bilo ah diyaargarow bay u baahan tahay guddiyo doorasho oo lagu kalsoon yahay ayay u baahan tahay shuruuc iyo xeerar bay u baahan tahay international community-ga iyo dowladda federaalka inay ka qayb ka ahaadaan bay u baahan tahay wixii oo dhanna hadda ma muuqda marka waa doorasho hoosgelis ah saa darteed waan ka digayaa waxaana leeyahay yaan lagu ciyaarin mustaqbalka Jubbaland meel fiican bay ku socotaa wax fiican baa qabsoomay inta dhimanna si wanaagsan loo dhamaystiro hadda waad la socotaa Somaliland waxaa hadda la isku haysto doorasho sanad kadib dhici doonta waqtigeediiba hadda yaa laga doodayaa waana sida ay tahay marka doorasho 15 beri waa doorasho boogsiisa hadday dhacdana ma filayo inay helayso sharciyadii iyo maxaan ku idhaahdaa taageeradii dadka reer Jubbaland iyo dadka Soomaaliyeed iyo international community-ga wax sharciyado qiimo yeelan doonta ma jirto cabsida jirta ee baarlamaanka uu ka dhawaajiyay waxa weeyaan in marnaansho dhinaca awoodda ay dhacdo oo madaxweynaha hadda xilka hayana waqtigiisii uu dhamaado cidii bedeli lahaydna la waayo soo taa idin ma muuqato maya waa la xallin karaa oo waxyaabo technical ama arrimo farsamo weeye doorashada haddii 3 bilood kadib ama 6 bilood kadib laga dhigo intaa uu sii joogi karaa madaxweynaha hadda jooga xubnadooda uu sii hayn karaa wax dhibaato ah mala heshiiskana wuxuu ahaa heshiis dhexmaray dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland wana ka wada hadli karaan intaas in lagu daro si doorasho xalaal ay u dhacdo marka taasi nabadgelyo ma noqon karto anigu sidaan arko waa qodob la xallin karo xil baana ka saaran baarlamaankana runtii waxaa la ogaanaya baarlamaanku ilaa hadda lama oga mataqaanaa tayadiisa laakiin arrintani waxay muujin doontaa baarlamaanka Jubbaland inuu yahay baarlamaan jira oo rasmi ah oo shaqaynaya oo ka fakaraya danta Jubbaland iyo inuu yahay baarlamaan dad gaar ah ku shaqaysanayaan inuu yahay waa kala cadaanaysa marka waxaan leenahay baarlamaanka mas'uuliyad baa idin saaran idinka ayaa stakeholders oo dalka iskale dadka la doorto waa shaqaale wey laakiin dadka dalka iskale waa parliamentarian inay taa ogaadaan baa la doonaya sheekh Shakul dhinaca kale waxaad ka mid tahay ganacsatada inta badan dibadaha ka shaqaysta Nairobi iyo meelo kaleba marka soo uma muuqato in dadkiina dibadaha ku nool in marka doorasho la yiraahdo aad ordaysaan oo dahaysaan annagana waanaka hana lagu daro liiska wal taas kama jiraan anu waxaan ka mid ahaa dadkii Jubbaland wax ka soo dhisay waxaan ahaa aasaasigii Jubbaland Chamber of Commerce CCI ayaan ahaa markii doorashada uu ku dhawaaqay madaxweynaha haddana ninkii ugu horeeyay ee aqoonsada taageeray baan ahaa oo idaacadaha ka hadlay qadaayaadka jiro oo mar walba mawaqifteeda waan caddeyn jiray hadday tahay heshiiskii federaalka iyo Jubbaland ay galeen waataan press release ka qabtay shaqo kale oo badanna waan qabtay laakiin ma doonayn inaan maaragtay madaxweynaha hadda jira aan caqabad ku noqdo ama aan gorab ordo ama aan u muuqdo nin ximinayo oo maaragtay maadaama aan la tartamay ma aanan rabin inaan u muuqdo marka ixtiraam maamulka ixtiraam aan u hayo iyo nidaamka ixtiraam aan u hayo wixii aan ka gaabiyeyna taasaa keena laakiin waan ku jiray hawsha waana ku jiri doonaa horeyna waan ugu jiray waxyaabo badan baan ka qabtay Jubbaland